بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة كوني لو يلوتونكي ميلادي ها مسلمين أندلس وهي سنة وحن وصامري وحسنة كاد عي دجالك اللي يقانو معركة العقاب وأهيد معركة أما دجالك المسلمين تو الكتشبان كدبنا وهرسادي مجالوين كمسلمين أندلس in sidii silsilad ama kuul la furay ay gacanta cadawga ku dhacaan magaalooyinka dagaalka kadib natiijada u noqday in ay gacanta cadawga ku dhacaan waxa kamid ah magaalooyinka Ishbiliya, Tulaytila, Qaranata iyo Qurtuba. Sidaa ogeed muuqaalkan waxa aynu ku daawan doonaa ama aynu ku lafaguri doonaa hadii Ilaahay ka dhigo dagaalkaas natiijadii ka dhalatay qaabkii uu u dhacay sidii muslimiintu ay ugu guul dareysteen inay cadawga u joojiyaan iyo natiijooyinkii laga dhaxlay أداو شواع. سيدنا صاح حسني سنة كون يلا بقول يلا بيتوبنكي مسلمين تا وهجامين أي عيدا كودا سلطان كي موحدين تقلهم مجعب جري السلطان الناصر والدولة وقت جاء كترين يسي تلك مراكو إيوه مسلمين تا أندلس أنت يقول كي أمريكا كهيستين أي واحد أيسكهري مادين عيدا كي كريستن كا إسبانيش كأها oo iyagu markaa afar boqortooyo oo midoobay oo isu yimi kala ahaa ciidamada Isbaanishka waxa ugu tun weynaa ciidankii uu hogaaminayay boqorkii Alfonso sideedaad ee lagu magacaabi jiray ciidanka Qishtala sidoo kale isaguna waxa meesha marayay boqor Sancho toddobaad oo ahaa boqorka boqortooyada Navarra iyo sidoo kale Pedro labaad oo ahaa boqorkii Portugiiska iyo sidoo kale boqorka boqortooyada Aragon ee lagu magacaabi jiray Alfonso labaad afartaas ciidan oo isku dhafan waxa ay u midoobeen muslimiinta muuxidiinta ahaa waqtiga inay la dagaalamaan oo dagaalkaas ay ku kala calaf qaadaan muslimiinta laftarkoodu way ogaayeen dagaalkan inuu yahay dagaal aad u ballaaran oo natiijooyin ka dhashana wax badan oo taariikhda muslimiinta Andalus in ay go'aamin doonto sidoo iyaga laftarkoodu sultaan Naasir markuu ka war helay in ciidankaas isu urursanayaan muslimiinta wuxuu u diray an-nafir al-aam waxaana ka soo qayb galay ciidan aad u tiro badan waxa lagu qiyaasaa labada ciidan ee muslimiinta iyo kristanka inay ahaayeen laba ciidan oo aad u tiro badan tirada muslimiinta waxa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 300,000 ilaa 400,000 halka lagu qiyaaso ciidanka kristanka inta u dhaxaysa 400,000 ilaa iyo 500,000 masaadirta Isbaanishku ama Isbaanishka taariikhdiisa marka aynu eegno dagaalkan waxay u yaqaanaan de las Navas de Tolosa oo ah dagaalkii ka dhacay toga u dhow Tolosa Tolosa waa magaaladii ugu dhaweyd ee dagaalku ka dhacay magaceeda Las Navas na waxay ku magacaabaan togii dagaalku ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Las Navas sida ugu bixiyeen Las Navas de Tolosa muslimiintu iyagu waxay u bixiyeen dagaalka macrakada al-Uqab laana waxa la sheegaa meesha waxa ka dhawaa xisn ama dhufays lagu magacaabo al-Uqab oo ay lahayd dawladii Amawiyada ee duntay ka hor intii aanay soo bixin muluku Tawaif sidoo kale labada masaadir adii istaahid baad waxa aad ku baaraysaa af Carabi ama taariikhda muslimiinta macrakada al-Uqab hadii istaahid Isbaanishka taariikhdiisa ku baar ama Laatiinkana waxaad ku baaraysaa magacaas de las Navas de Tolosa dagaalkani runtii waxa uu go'aamiyay taariikhda jasiiradda oo ka loo yaqaano Iberia sababtoo ah waxa uu hordhac u ahaa muslimiintu inay guud ahaanba ay ka baxaan ama ay gacanta laga wareego oo gacantooda ay ka baxdo guud ahaan Andalus oo idin dagaalka wixii ka dambeeyay muslimiintu waxa uu bilaabmay Andalus inay iskaga haajiraan oo dalka Morocco ay u haajiraan sidii maalinba magaalooyinkooda magaalo kamid ah loo qabsanay hadaba taas sidoo u dhacday waxa dhacay dagaalkan markii la iskaga horiyimi muslimiintu way ku jabeen si aad ugu farxun bay ugu jabeen ciidankii muslimiintu maxay tahay waxa ku dhacay jab aad u weyn oo ay ka soo kaban waayeen sultaankii muslimiinta waqtiga watay sultaan Naasir markii uu arkay goobta dagaalka muslimiinta in lagu jabiyay inankiisiina goobta dagaalka lagu dilay taandhadiisa uu iska fariistay isagoo niyadjabsan oo ugu talagalay halka inuu ku sugo geerida ama in la qafaasho oo gacanta lagu dhigo laakiin ciidankii muslimiinta ee tirada badnaa ee yaacay goobta ka baxsanayay ayaa hore gacanta u sii qabtay oo uu raacay firxadkii iyo baxsadkii xataa kumay nasanin magaalooyinkii muslimiintu Andalus ay ka deganaayeen ee kala duwanaaya lahaa Tulaytila iyo Ishbiliya iyo may ku nasanin oo iyagu markii xataa dawladooda muuxidiintu marka ay ka talinaysay ee waxa ay ku nasteenun magaalada Marrakesh oo ahayd boqortooyada muuxidiinta caasimadoodii hasaatee sultaan Naasir uu xumo iyo murugo ka soo gaadhay jabka inta leega soo gaadhay iyo natiijada uu ka warqabay kulaba inay ka dhalan doonto
uurxumo uu ka qabay iyo murugo uu la noolaa ayaa waxay ku keeneen hal sanaba kadib oo ku beegan 1213 inuu geeriyoodo. markii uu suldaanku geeriyooday haddaba taladii muwaxidiinta waxaa qabtay salaatiin aad u taag daran, manfac yar, tayo yar, tiro badanse qaarkoodna waxaabay intaa ku dareen khiyaano iyo in ay la shaqeeyaan cadowgii muslimiinta. waxaa nimanka ugu caansan ninka loo yaqaano abulcalaa idriis alma'muun oo isagu keenayba in nimankii markaa is hayeen xilka isku hayeen inuu usoo adeegsado boqortooyadii qishtaala. waqtiga boqortooyadii qishtaala boqorkii muslimiinta ku jibiyay dagaalkii alcuqaab ee loo yaqaanay alfonsaha sideedaad wuu geeriyooday. waxaa xilka markaa hayay boqor lagu magacaabi jiray farnaandaha sideedaad. farnaando markii uu u yimi abulcalaa ee uu ka codsaday in ciidan iyo madad lagu daro oo ay isaga ka taageeraan dagaalka nimanka ay isku talka yihiin is hayaan, shuruudo hordhigay dhowra oo adag. hase haatee dhammaantood shuruudaha hore ayuu ka aqbalay abulcalaa. shuruudaha waxaa ka mid ahaa kow, horta abulcalaa 10 dhufays oo ka mid ah dhufaysyada ugu adag muslimiinta andalus ay lahaayeen in lagu wareejiyo bilaa dagaal ciidanka qishtaala. laba, waxa uu ka codsaday oo kale ama uu ku xidhay shardi ah magaalada maraakish oo ahayd caasimadii maqrib ama dowladda muwaxidiintaba waqtigaa in laga dhiso kaniisad ay qishtaaliyiintu leeyihiin. waa ku xumeyn lagu xumeynayo. waa isla sheekadii uu ka codsaday alfonsihii lixaad ninkii lagu magacaabi jiray almuctabid ibnu cabaad ee haystay magaalada ishbiiliya ee siduu maalin walba wax uga ogolaanayay, maalin walba tanaasulada uga ogolaanayay, maalin walba dhufaysyo hor looga qaadayay si uu uga caawiyo nimankii kale ee muluuka Tawaa'if ay is hayeen. markii dambe uu usoo diray fariin oo uu yiri niyow faaliyahayga faaliyay, wuxuuna ii sheegay muslimiinta si aan uga adkaado oo aan dagaalka ugu jabiyo inay laga maarmaan tahay xaaskaygu oo uur leh in ay ku umusho masaajidka jaamica ah ee magaalada ishbiiliya. sidaa ogeed waanu soo soconaa ee waxaad samaysaa magaalada iyo masaajidkaba noo sii diyaari si xaaskaygu ay ugu umusho. nasiib wanaag waxay keentay waxay tahay falkaasi inuu cadhoodo almuctabid ibnu cabaad oo uu qayladaan doonto yuusuf ibnu jaafiin oo markaa ahaa boqortooyo ama maamul muslimiintu ay lahaayeen oo ka dhisnaa Morocco. dabeedna sidaa uu kusoo gudbay waxaa dhacay dagaalka caanka ah loo yaqaano macrakata zallaaqa oo lagu jabiyay alfonsii lixaad. hase haatee mar walba muslimiintu waxaad arkaysaa markay iyagu istuleeyaan ee cadowgooda ay taageero iyo taakulo ka dalbadaan waxaa imanaysay in lagu dayo oo lagula hadlo dhaqamo qofka damiirka leh uu ka sariiliyoonayo. laakiin ninkan wuu aqbalay. muctabid ibnu cabaad wuu diiday, laakiin ninkan wuu aqbalay. sidii baana lagu meelgashay, sidii ayaana ku hirgashay. hase haatee taasi waxa ay keentay muslimiintii andalus deganeed iyo kuwii Morocco joogayba ninkan in ay ku kacaan lagu baxo oo dad badani ay kasoo horjeestaan. waxaa soo baxay waqtiga nin loo yaqaano Muhammad ibn Hud oo isagu dadkii diidanaa abaabulay kacdoon ka dhan ah dowladda muwaxidiinta andalus bilaabay. markiiba waxaa kacdoonkiisa taageeray magaalooyinkii waaweynaa sida magaalooyinka ishbiiliya, gharanata, qurtuba iyo marsiya, valencia. markiiba magaalooyinkaas muslimiinta joogtay way taageereen kacdoonkiisa waana ku biireen ilaa sanadog yar oo kooban gudahood muwaxidiintii lagaga sifeeyey dhammaan andalus oo idin. محمد بن هود هدب نصيب حمو waxa uu ku guuleystay wajigii koobaad ee kacdoonku lahaa oo ahaa in uu muwaxidiinta ka saaro dalka Andalus. laakiin wuxuu ku guul daraystay wajigii labaad ee kacdoonku lahaa oo ahaa muslimiintii Andalus in uu mideeyo oo hal maamul uu u sameeyo. muwaxidiintu si kastoo ay u xumaayeen ugu yaraan haddana waxa ay hayeen isku hayeen muslimiinta waxa ay ka difaacayeen dhibaabaha iyo cadaawaha waxay kaga imanayeen iyo weeraradooda iyo hankoodaba iyaga ka difaacayay. حساتي محمد بن هود وكوكول درستي مسلمينتي أندلس إن أميدايو تاسنا مركبة وحا أي دمع كسور ردي أو أي دمع جلسي بغرتوينكي كالدوانا كريستان كاها برتغيز كايو سبانشيا كالسنا سيدا نافارا أراغون إيو كاستيلا سغالي لباتاكي بيشا اللحاد تشون كون يلا بغول إلي حي صدنكي مسلمين توحا لكل مي دعدو آدي وحانو تسيسي ilaa iyo maantana taariikhda dhacdooyinka la xuso kamid ah waxa laga qabsaday muslimiinta magaalada loo yaqaanay Qurtuba lama mid ahayn magaalooyinka kale maxay tahay Andalus waxa lagu magacaabaa inay tahay taaj wulu'at ad-durra al-andalusiyya. magaalooyinka Andalus caruusadooda ama taajkooda madaxa ugu sareeya u saaran bay ahayd laana waxay ahayd caasimadda khilaafada al-amawiyya. khilaafada ugu dambeysay qiimo lahayd ka hor intaan muluka Tawaa'if soo bixin عبد الرحمن الداخل وكدسي
labada boqol iyo dhowr iyo kontonka sanadood jirtay caasimadii ay ka jirtay bay ahayd sidoo kale waxay ahayd manaarat alcilm fi Europa waqtiga waxay ku jirtay in yar ka hor wixii loo soo gaaro 1100 ilaa 800 sanadood oo dib loo raaco taariikhda Yurub waxay ku jirtay wixii loo yaqaan dark ages ama al-usur al-mudlima waqtiyadii mugdiga badnaa iyagu waqtiga reer Yurub waxay u soo doonan jireen aqoonta Qurtuba ilaa iyo maalinkan maanta markii ay qabsadeen waxa ay daayeen masaajido iyo dhul kamid ah dhulkii muslimiinta ay qabsadeen markay la yaabeen quruxdooda iyo dhismahooda iyo qaabka ay u dhisnaayeen magaaladii qaabka ahayd 1236 ayay si kadis ah u gashay gacanta boqortooyadii Castella ama Qishtala maalinkii muslimiinta gacantooda ay ka baxday Qurtuba nasiib xumo magaalooyinkii kale ee Andalus waxay bilaabantay iyaguna sida kuul la furay ama silis la furay inay muslimiinta magaalooyinkoodu ay si istaba joog ah ay gacanta cadawga ugu dhacdo isla laba sanadood kadib oo ku beegan 1238 iyaduna magaalada Valencia ama Valencia waxa qabsatay boqortooyadii Aragon oo sida muslimiinta gacantooda ay kaga baxday 1243 waxa gacanta muslimiinta ka baxday magaalada loo yaqaan Marsiya oo gashay gacanta Qishtaaliyiinta Marsiya muslimiinta waxay u lahayd muhiimad istiraatiiji ah oo aad u weyn waayo waxay ahayd macqalkoodii ama dhufayskoodii ugu dambeeyay ama magaaladii ugu dambeysay ay ku lahaayeen bariga Andalus taasoo ka dhigan magaaladaas markay muslimiinta gacantooda ka baxday dhammaan bariga Andalus oo idil gacanta muslimiinta ayuu ka wada baxay 1248 oo ah 5 sanadood kadib markii ay muslimiinta gacantooda ka baxday magaalada Marsiya sidoo kale waxa muslimiinta gacantooda ka baxday oo ay Qishtaaliyiintu qabsadeen magaalada loo yaqaan Ishbiiliya inta wixii ka dambeeyay muslimiinta waxa u soo haray oo kaliya magaalada Qarnaata dhammaan dalkii Isbaanishka ahaa oo idil iyo Portugiiska iyo qaybo kamid ah Faransiiska ilaa iyo Lyon muslimiintu ay gaadheen Abdurrahman al-Ghafiqi dagaalku ku jabay loo yaqaan macrakad Balad al-Shuhada waxay ka dhacday meel u jirta Paris 100 kilomitir Lyon xagga shishe ka xigta waqtiga muslimiintu marka waqtiga uu Abdurrahman al-Ghafiqi dagaalku ku jabi doono magaalooyinka Lyon iyo Barcelona iyo dhamaantood muslimiinta gacantooda ku jireen sidoo kale qaybo kamid ah Faransiiska Isbaanishka oo idil iyo qaybo kamid ah Portugiiska muslimiintu maalin ay wada haysteen laakiin 1248 kadib Ishbiiliya gacanta Qishtaaliyiinta marka ay gashay magaalada kaliya ay ku soo hadhay gacanta muslimiintu waxay ahayd Qarnaata maxay daba sameyn jireen muslimiinta magaalooyinka la qabsanayay ku noolaa inta badan muslimiintu marka magaalooyinka la qabsado waxa ku dhacayay gumaad inta badan marka magaalooyinka soo galaan Kristaanku dadka way leen jireen way dhici jireen way kufsan jireen way baabin jireen kufsiga iyo dhaca iyo gumaadka inta ka badbaada waxa lagu qasbi jiray in laba kala doortaan inay haajiraan oo ay dalka ka qaxaan oo Morocco iyo Jazaa'ir iyo Tunis iyo dalka Shimaal Afriqiya waqooyiga Afrika muslimiinta ahaa inay u qaxaan iyo inay baradooda ku nagaadaan oo ku noolaadaan oo ay diinta Kristaanka qaataan diinta Kristaanka qaadashadeedu laftarkeedu ma ahayn mid fudud waayo iyaga iyo Yahuuda muslimiintu kale ma ahayn Yahuuda iyo Kristaanka wixii aan ahayn Kristaanka Catholic ah ee Isbaanishka iyo muslimiinta waxa lagu qasbi jiray in ay qaataan diinta Catholiga waxa sidoo kale kula xisaabtami jiray oo baari jiray oo daba socon jiray daba gali jiray oo hubin jiray sheegashadooda ay diinta qaateen inay dhab tahay maxkamadihii loo yaqaanay maxaakim taftiish al-Isbaaniya maxkamadihii daba baarista Isbaanishka oo iyagu guryaha dadka ugu gali jiray oo baari jiray maxay tahay qofku inuu Ramadaanta soomayo baari jiray qofku inuu khamriga cabo yaanu cabin baari jiray qofka lagu helana si aad iyo aad u arxan daran u gubi jiray u dili jiray ama nafta uga goyn jiray muslimiinta gacantooda waxa ku soo hadhay sidaan sheegnay marka dagaalkaas natiijada ka dhalatay kadib magaalada Qarnaata iyaduna waxay gacanta muslimiinta ka baxday 1492 oo iyada lafteeda waxa qabsatay boqortooyadii Qishtala maxay tahay iyo boqor Fernando iyo boqoradii kale uu guursaday lagu magacaabi jiray Isabella maalinka markii muslimiinta Qarnaata laga qabsadayna sidaas waxa ku dhamaaday al-wujuud al-islaami bi rummatihi fi shibh al-jazira al-Iberiya joogitaanka muslimiintu ay joogeen iyo awoodii ay ku lahaayeen jasiirada Oaxaca Iberia oo ah Isbaanishka iyo Portugiiska waxaana sidaa lagu soo laabay oo ku soo laabmay xalqad ama taariikh kamid ah taariikhda muslimiinta dalal fara badan muslimiintu ay tageen oo intay muddo badan ka taliyeen gacantooda ka baxday way jirtay laakiin waxaan aaminsanahay inaanay jirin meel muslimiintu gacantooda ka baxday oo ka xanuun badnay sida uga baxday Andalus inaanay jirin
waxaana laga baran karaa runtii duruus aad u fara badan oo ilaa maalinkan maanteena ah taagan yani مثلا oo kale magaalada Ishbiliya oo kale markii la qabsanayay qashtaaliyiinta waxa ka caawinayay niman magaciisa iga maqan imika nin kamid ah boqoradii qaranaata oo doonayay kaliya in qashtaaliyiintu ay ka caawiyaan qaranaata inuu boqor u ahaado oo lagu hayo xilkaas si taa uu u damaanad qaado ayuu ka caawiyay qashtaaliyiintu inay qabsadaan magaalada Ishbiliya 1240 oo muslimiinta cadawga gacanta u galiyay أبو العلاء أو أن سوش يعني فللكيسو مركز مانتا تاريخ ذا عاد اكتيد مانتا بربر اكتيد وحلو جانا ساب إن بدن مدحت مانتا تشوكتا يسوي وكو عني هاي أو كم حيتين أرحم وعني هاي أو مسلمين وجانا حديث بدني تاريخ ذا دروس كنتي وحكود وجان دروس عادوا في ربطن أو مانتا وقت يعني تشوفنا المدينة دب تاريخ دروس على سو عادي نوع فعايا تاريخ ذا أندلس بالشدة إنه حق بدن أو عادوا في ربطن كما هي سو أنت أي كاهي سنة وأنت ku saabsan taariikhda muslimiinta iyo boqortooyinkooda sida boqortooyadii dowladda Amawiya iyo muluka Tawaif iyo dowladda muraabidiinta ahaa iyo dowladda muwaxidiinta ahaa laakiin waxa isku dayay anigu bal idilaaha ka dhigo muuqaalada soo socda inaan dhanka kale ka soo istaago oo aan inoo soo gudbiyo xog ku saabsan boqortooyinka Qishtaala Aragon Navarra Leon iyo boqortooyadii Portugiiska oo aan ku koobsanin kaliya in ay muslimiintii Andalus joogtay Isbaanishka ka saaraan iyaguna markii ay awoodda isku hubsadeen kadib bilaabay in ay ka soo baxaan xuduudooda oo ay inaga dhulkeena lagu soo weeraraan mesela kale Axmed Gure markuu la dagaalamayay Etoobiyaanka cid caawinta Portugiiska ahaayeen Vasco da Gama iyo Christopher iyo Vasco da Gama ayaa u soo gurmad maxay tagay xagee awoodda ka keeneen Portugiiskan awoodda yeeshay Isbaanishkan markii daba qabsaday maxay Christopher Columbus u diray isla Fernando waa ninka u diray isla Fernandahaas iyo Isabelladaas ayaa Christopher Columbus u diray in uu maxay Hindiya aado intii Hindiya markaa ka lumay ayuu tagay markaa America Laatiiniya kolkaas uu dadka deegaanka ku magacaabay inay yihiin hidacsaas marka waxaan raadin doonaa bal taariikhaha boqortooyinkaas siday ku soo bilaabmeen muslimiintu markay qabsadeen Andalus dhulkaas oo dhan way wada qabsadeen sidee bay boqortooyinka yar u sameysmeen sidee bay u xoogeysteen sidee baanay u gaadheen inay muslimiinta dalalkooda iyo dhulkooda u qabsadaan qaybo ka mid ah bulshada igu xiran waxay iga codsatay faalooyinka inaan muuqaalada soo koobo anuu nin iska war badan baan ahay oo hadalku ila taraaraa sida ogeed si hadalku aan ila taraarin muuqaalkuna aanu u dheeraanin intaas ayaan muuqaalkeeni maanta hadii la ka dhigo ku soo afmeeraya muuqaal kale oo la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa salaamullaahi calaykum